waxaan u baahanahay in aan shaqo helo. Hadda ayaan waxbarashadii soo dhameeyay. Maxaan u baahanahay si aan shaqo iyo u helo? Talooyinkeen raacaa. Maxaase ugu fudud oo aniga aan samayn karaa? Maanta videogan waxaa idinkugu soo gudbin doonaa 4 qodob oo muhiim u ah sida ugu dhaqsiyaha badan aad shaqo ugu heli karto. waan idin salaamay dhammaan asxaabta meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada channelkayga. magacaygu waa Cabdiraxmaan. maanta barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa 4 qodob oo muhiim u ah si aad shaqo u hesho sida ugu dhaqsiyaha badan. qodobka koowaad oo ugu muhiimsan waa xirfad shaqo. waxaa jira qaabab badan oo kala duwan oo aad shaqo ku heli karto. shaqo xirfad aad leedahay ama shaqo xirfadeed aad leedahay waxay aad iyo aad ay muhiim ugu tahay ayna kuu soo dedejinaysaa inaad shaqo sida dhaqsiyaha badan ku hesho xitaa haddii ay ka dhamaato shaqo kale oo aad shaqo kale u baahan tahay inaad hesho. helitaanka shaqo waxaa qayb weyn ka ah inaad xirfad leedahay. waxaana jiro xirfado u baahan inaad leedahay ama aad soo baratay oo waxbarasho soo aaday oo waxbarasho dheer aad soo aaday sida dugsi sare, machad sare ama jaamacado. iyo waxaa jiro xirfado oo yar oo leh koorsooyin yaryar oo degdeg ah oo aad suuqa shaqada aad ku geli karto. haddii aan soo qaato tusaale ahaan xirfadaha shaqo oo yaryar oo suuqa shaqada aad ku geli karto oo koorsooyin yar aad u baahan tahay waxaa ka mid ah warehouse-ka oo kale inaad ka shaqayso, ama inaad sida nadaafadda ama cleaning aad ka shaqayso, ama waxaa ka mid ah inaad qof caawiyo aad noqoto oo ama caawiyo macalin ama caawiyo cunto kariye ama waxsaas aad noqoto. xirfadaha yaryar oo marka waxaa u baahan tahay koorsooyin yar oo yaryar oo degdeg ah inaad qaadato si aad xirfadle u noqoto marka. iyo waxaa jiro xirfado oo muhiim u ah inaad waxbarasho aasaasi ah soo qaadato. sidaan hore u sheegay waxbarashada aasaasiga hore u soo qaadato waxaa ka mid ah inaad soo marto ay muhiim tahay. xirfadahaasi oo aad shaqo ku heli karto oo ugu way fara badan yihiin, aad iyo aad u fara badan yihiin, laakiin waxaan soo qaadanayaa oo keliya waxa maanta suuqa shaqada yaalo oo u baahan inaad oo aad haddaad leedahay xirfadahaasi inaad iyo shaqo aad helayso. waxaana ka mid ah kalkaaliye caafimaad ama kalkaaliso caafimaad. ma ahano nurse, laakiin kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeeyo dadka ama waayeelada ama dadka jiran ama dadka oo handicapka ah. marka waa qof oo kalkaaliye caafimaad oo qayb caafimaadka ka mid ah soo bartay oo u baahan in oo xirfadiisa uu ku shaqaysto. marka waa xirfad oo kalkaaliso caafimaad ayaa lagu magacaabaa. waxaana ka mid ah xirfadda labaad oo sida ugu dhaqsiyaha badan shaqo aad ku helaysid xirfadda macalinimo ayaa ka mid ah, oo macalin school iyo macalin xanaano caruurta ah. macalin oo xanaanada caruurta ah oo meelaha caruurta lagu haayo oo lagu xanaaneeyo inaad tababar usoo qaadato oo ama waxbarasho usoo marto oo asaasi ah, iyo inaa macalin school aad noqoto. marka waxaa kaliya u baahan tahay inaa oo fursadahaaga si aad u hesho fursadaha shaqo sida ay kuu soo marto aad rabto inaad u hormariso. marka asaasiga oo shaqada oo waxa asaasigu ahna inay waxbarashadaasi oo kaliya ay tahay. waxaa ka mid ah engineer oo kale. engineer markaan leeyahay engineer electric, engineer dhismo, engineer oo oo biyaha iyo tubada, engineerada oo madaniga ah, engineerada korontada waa far badan yihiin, laakiin waxaan guud ahaan ka soo qaadanayaa inay yihiin engineero. waxaa kaloo ka mid ah oo oo fursadaha ugu dhaqsiyaha badan la helayo sida farsamo yaqaan oo tuba ah, sida tubooyinka loo geliyo guryaasha ama tubooyinka loo habeeyo, iyo farsamo yaqaan koronto oo installation ah. aad iyo aad ay maanta u badan tahay fursadaha shaqo ee farsamo yaqaanada. waxaa kaloo ka mid ah shaqooyinka dhakhtarnimo ka mid ah, way fara badan yihiin, laakiin inta ugu muhiimsan aan soo xasuusto kaliya soo qaaday. marka waa fara badan yihiin.
marka inaad xirfadahaasi xirfad ka mid ah aad leedahay waxay kuu saamaxaysaa ayna kuu soo dedejinaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad shaqo ku hesho. Muhiim maan inaad aqoon oo maaragtay aad soo marto dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamacad. Waxaa laga yaabaa inaad qof weyn tahay oo hore waxbarasho usoo marin, laakiin aad u baahan tahay inaad sida ugu dhaqsiyaha badan shaqo ku hesho. Marka waxaa u baahan tahay oo keliya in oo aad soo qaadato koorsooyin degdeg ah oo maaragtay kuu saamaxaya inaad fursad shaqo ku hesho. Marka inaa oo xirfadaasi aad leedahay ama xirfad aad yeelato waxay u baahan tahay oo muhiim ay tahay oo keliya ay kaa xigtaa waxa waaye inaad tababaro soo qaadato haddaadan waxbarasho asaasi soo marin. Haddii aad soo martay waxbarasho asaasi ah, ama meesha aad joogtayna aad fiiriso macluumaadkeeda iyo waxeeda, waxa ugu badan oo suuqa shaqada laga helo aad tababar u qaadato. Si aadan u sugin waxaan jaamacadda kusoo dhameeyay oo keliya ayaan ku shaqaysanayaa. Waayo waxaa u baahan tahay oo keliya inaad si ugu dhaqsiyaha badan aad shaqo ku hesho. Waxaad soo baratay way kuu dambeynayaan. Hadhowdii marka adiga aad fahamto oo experience iyo waxyaabo badan aad qaadato ayaa waxaa soo baratay aad ku tegi kartaa. Marka sidaa darteed waxaan leeyahay waxaan qodobka koowaad aan siiyey waa xirfadda inaad leedahay oo muhiim ay tahay. Waxaan u gudbayaa qaybta labaad. qaybta labaadna waxaan kusoo qaadanayaa qoro CV aad u qurux badan. Markaan ku leeyahay qoro CV aad u qurux badan, waxaa og tahay inaadan arkaynin markaad shaqo codsanaysid qofka aad shaqada ku codsanaysid ama shirkadda aad shaqada ku codsanaysid oo keliya aad u diraysid waraaqadaha aad diraysidna maxaa waaye marka waraaqadahaasi waxa waaye waa CV-ga oo af Ingiriiska oo curriculum vitae lagu dhaho, oo af Soomaali haddaan u bixiyana warqad adiga ka hadlayso ama shakhsiyadaada, warqad macluumaad ku qoran waxa adiga shakhsiyadaada. markaan ku leeyahay inuu qurxi CV-ga micnaha waxa waaye in marka haddii aad maaragtay warqadda aad dirayso u dirayso qofka shaqada oo bixiyaha aad u dirayso ama shirkadda shaqada bixinaysa u dirayso, micnaheedu waxay tahay inay warqadaasi wakiilkaa tahay. marka warqadda day wakiilkaa tahay, warqadda naftirkeeda waa inay qaab qurux badan oo qoraallo oo clear ah oo maaragtay nadiif ah oo na kooban oo na macquul ah inaad ku qorto. waxyaabaha ugu muhiimsan aad ku qorayso CV-ga oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah your personal detail ama iskale macluumaadka koow oo shakhsiyadaada ah, sida magacaaga, telefoonkaaga, waqtigaa dhalatay, emailkaaga, adresska guriga aad degan tahay adreskiisa oo haddii aad leedahay waaye. laakiin wadamadan aan joogno oo sida maaragtay oo reer galbeedka mar walbaba adres waa muhiim. marka waa inaad ogaataa micnaha qaybta ugu horeyso u baahno inaad macluumaad dheer ku qorto, magacaaga oo saddexan, adreskaaga iyo telefoonkaaga iyo meesha aad degan tahay iyo waqtigaa dhalatay. marka qaybta ku xigtana waxaad qoraysaa oo ku qoraysaa experience-ga aad leedahay ama shaqooyin hore usoo qabatay hadday jiraan. shaqooyinka hore usoo qabatayna waxaa u kala horumarinaysaa shaqadii kuugu dambeysay aad soo qabatay. dabcan waxaa laga yaabaa inaad hadda shaqo ku jirto oo aad rabto inaad shaqadii aad bedelato oo shaqo kale aad raadsato. waxaa ku qoranaysaa shaqada isla kaarantigaasi aad joogto. marba waxaad soo horumarinaysaa shaqadii kuugu dambeysay aad soo qabatay ee u kala horumarinaysaa. marka waxaan ugu muhiimsan aad ku qoraysid marka shaqada oo experience-ga qaybta experience-ga ugu muhiimsan aad ku qoraysid waxa waaye inaad maaragtay date-ka aad bilowday, taariikhda aad soo bilowday shaqada iyo taariikhda ay ka dhamaatay shaqada iyo waxa mention-kaaga uu ahaa ama iskale waxaya oo adiga aad qabanaysay oo maaragtay hawsha adiga aad haysay oo title-keeda ku qoraysaa. مثلا waxaa ahayd electricist ahayd, waxaad leedahay electricist ayaan ahaa. waxaad kaloo kusii hoos qoraysaa marka waxyaabaha oo adiga oo shakhsiyan aad qabanaysay aad kusii hoos qoraysaa, installation maaragtay xirxiridda, waxyaabo adiga aad qabanaysay oo dhan oo macluumaad aad ku hoos qoraysaa iyo goobta aad ka shaqaynaysay iyo adreskeeda ayaad ku qoraysaa. marka adreskeeda xataa looma baahan, laakiin goobta aad ka shaqaynaysay iyo shirkadda magaceeda meesha aad ka shaqaynayso. marka waxaa usoo kala horumarinaysaa sida ugu dambeysay ayaa usoo kala horumarinaysaa. waxaana ku xijinaysaa marka waxa waaye tii kugu dambeysay oo aad kasoo ay kaas ama shaqadii kugu dambeysay ay kaasoo dhamaatay ayaa kusii xijinaysaa.
marka qaybta labaad waxaa ku qoraysa waxa waa experience, qaybta koowaad waa personal information, qaybta labaadna waa maaragtay xirfadahaaga iyo experience-ga iyo waxa aad soo qabatay oo aad ka soo shaqaysay. qaybta kale waxaad ku hoos qoraysaa education-kaaga ama iskala macluumaadkaada waxbarasho, waxaana soo horumarinaysaa waxbarashadii kugu dambeysay aad soo dhamaysay ay ku qoraysaa. marka waxaan usii horumarinaysaa sidoo kale jaamacad dugsi sare sidaas oo kale, laakiin dugsi hoose iyo dugsi dhexe laguma qoro. haddii aad training yar soo qaadato oo bilooyin soconayana waa ku qoraysaa trainingka magaciisa iyo meesha aad ka soo qaadato training. marka CV-ga inaad hagaajiso oo si qurux badan aad u samayso waxay micno ka tahay in CV-gaaga la doorto oo lagu soo waco oo maaragtay lagula yeeshto interview lagula yeeshto. waxaana taas ku fududeynayo inaad leedahay xirfadii markaas oo aad leedahay aad ogtahay in aad qortayna CV oo qurux badan. mararka qaarkood waxaa dhacdo in marka lagu daro warqad kale oo CV aan ahayn oo warqad kale oo la dhaho cover letter ama warqad oo adiga oo kaliya information yar ku qoraysid oo sida tusaale ahaan inaad dhahdo magacaaga oo saddexan iyo meesha ku dhalatay goorta dhalatay waxyaabaha hiwaayadaada ay tahay aad jeceshahay sida aad adiga personal ahaan aad tahay qof furfuran oo social oo waxsaas yacni wax badan looma baahno laakiin wax yar iyo inaad xiiseynayso positionkaas banaan inaad ka shaqaynayso aadna u qalanto inaad ma aragti ka shaqaynayso. marka CV-gaas inaad qorto oo qaabkaas u qorto oo maaragtay detailka iyo experience-ga iyo maaragtay education-ka markaas soo qorto waxaad ugu dambeysiinaysaa waxa waaye laba qodob oo kale oo soo raaco oo badanaa in lagu qoran ay aad u fiican tahay. qodobka kale waxa waaye skills-ka aad leedahay. skills-ka aan leedahay maxaa laga wadaa marka? skills-ka aad leedahay waxaa laga wadaa waxa waaye in maaragtay markii laga reebo khibradaada maaragtay khibradda waxyaaba aad soo shaqaysay iyo waxyaaba aad soo bartay markii laga reebo waxyaaba adiga aad hibaayad u leedahay oo skills ay tahay. hadda micnaha photographist ku fiican tahay photographist malaha ku qoraysaa computerka sidoo kale inaad ku fiican tahay office word excel waxyaaba noocaas oo kale haddaad taqaanid oo kale si fiican aad ugu qoraysaa. skillska aan leeyahay waxaa ka mid ah yacni office microsoft office photography filmmake waxyaaba noocaasaa ku qoraysaa marka oo skillska adiga aad leedahay oo hibaayad adig gooni ku ah ama hobbigaaga ah ayaad ku qoraysaa marka. iyo qodobka kale ugu dambeeyo oo fiican tahay inaad ku qortan waxa waaye haddaad leedahay driving license iyo maaragtay iyo kaarar kale oo gaadiid lagu wado sida maaragtay truck oo kale ama maaragtay doon oo kale wax allaal wixii gaadiid soconayo oo u baahan for lift oo kale marka waxyaabo noocaas oo dhan aad ku wada qoraysaa marka. intaasoo dhan marka waxa waaye macluumaadkaaga oo koobtay oo adigoo dhan kaa hadlaayo oo si fiican aad u qortay waxayna micno ka tahay marka waxa waaye inay CV-gaaga oo aad u qoran yahay. CV-gaaga oo aad u qoranna waxa macquul ah marka inaa maaragtay oo adiga CV-gaaga laga doorto CV-yada kale si markaas adiga shaqo oo maaragtay fursad shaqado ay kugu soo baxdo. marka waxaan qaybtan uga gudbayaa qaybta CV-ga waxaan usii gudbayaa marka qaybta saddexaad oo ah qaybta oo maaragtay ugu muhiimsan sideen ku raadsadaa shaqada maanta. markaan leeyahay maanta waa ugu micnaa inay adduunyada horumarto teknolojiyadana ay horumarto qaabab badan oo shaqo loo raadsadaa jirta. marka qaabab badan oo shaqo loo raadsado oo maaragtay oo muhiim ah oo macquul ah in oo maaragtay ay kuu soo dejiso inaad shaqada hesho. adduunyadoo dhan digital ay noqotay marka waxaa u baahan tahay oo keliya in oo adiga maaragtay badanaa shaqooyinka hadda internetyada lasoo dhigaa inta ugu badan oo hadda la ogyahay sida maaragtay macquulka ah xataa dadka Soomaaliya joogo oo raba inay hay'adaha ka shaqeeyaan shaqooyinka waxaa lasoo dhigaa internetyada ama iskale maaragtay website-yada lasoo dhigaa. yacni marka waxa waaye adiga waxay kaaga baahan tahay oo kaliya inaad dadaasho. dadaalka wuxuu dhalaa natiijo ayuu dhalaa. wax walbaba oo aad input samayso oo wax walbaba aad juhdi geliso output oo kusoo baxaayo oo natiijo fiican ah kusoo baxaayo. marka natiijada kusoo baxda marka waxa waaye inaad adigina maaragtay waxay hadafkaaga u ahaa inaad shaqada hesho marka ay noqonayso. waxaa jiro xafiisyo oo dad oo shaqaalaha kireeyo ama agency loo yaqaano oo laakiin
aanan ahayn shirkadaha loo shaqeynayo laakiin idin dhexeynayo adiga iyo shirkadii markay adiga ku qaadanayaan markay ku qaataan shirkadii ay ku dirayaan marka waxaa la dhahaa agency ama dadka shaqaalaha kiriyo xafiisyadaas oo kale way fara badan yihiin waad tegaysaa okay waxaa leedahay okay shaqo raadisa ahay CV-gin ma idin dhaafi karaa oo kale CV-gaaga dhaafaysaa laakiin waxaa muhiim ah marka oo aad qorto CV-ga oo aad haysato telefoonkaagan inaad ku save garaysato oo muhiim midaasi waa muhiim sababtoo adoo iska socda waxaa dhici karta inaad iska aragto shaqo macnaa waxyaabo adig ku xiiseenaayo xirfadaada ay tahay oo maaragtay meel ku dhegsan ama announce ama raadi ka maqashay ama wax ka maqashay isla markii marka telefoonka ku haysataa dhag waa u diraysaa marka waxaa jira xataa dad oo maaragtay caawiyo oo shaqadoodaba ay tahay shirkado oo caawiyo inay dadka shaqo u helaan oo kale meeshaas oo kale xataa waa tegaysaa waa iska register garaynaysaa waxaa leedahay anaa shaqo raadisaan ahay marka hadda maanta adduunyada waa horumartay wax walbaba email aad ku diraysaa website-yada lasoo dhigaa shaqooyinka marka agensiyaala jiraan oo kugu dhowaa iska dhiganayso marka qaababkaasoo badan waxa waaye waxaa marka jaaniskaaga soo baxayo laga yaabo marka inaa oo 2 meel 3 meel lagaa soo waco marka macnaha haddii shaqo lagu soo waco macnaheeda ma ahan inaa oo isla markii shaqo galaysid oo marka waxa waaye inaa oo macluumaadka iyo inaa waraysi lagula yeesho waay marka waraysiga lagula yeelanayo waa qodobkeena 4 waana qodobkeena ugu dambeeyay uguna muhiimsanaa marka qodobkeena 4 waa interviewga ama waraysiga oo shaqada lagula yeelanayo marka haddii oo lagu soo waco ugu aad iyo aad u nasiib badan tahay fursadahaaga shaqo ama iskala waxa aad raadinaysa natiijadeedana waxaa kaaga dhiman inaad shaqadaasi gasho oo kaliya sidaad interviewgaas uga baxsan lahayd interviewga ama waraysiga oo shaqada oo maaragtay lagaaga qaadayo ma ahano waraysi weyn ama maaragtay wax weyn interviewga secret badanaa ku jira marka maanta waxaan rabaa inaan idiin soo bandhigo marka waraysiga lagula yeelanayo shaqada secretska ku jiro waxaa aad iyo aad u muhiim ah inaa maaragtay oo aad ogaato dadka ku wareysanayo waxay u baahan yihiin inay ku baaraan oo adiga ay macluumaadkaaga gunta ay soo ogaadaan ka hor inta adina ay shaqada ku siinin mise aynan kontaraadda ku saxiixin wax walbay ku weydiinayaan xataa waxaa lagu weydiinayaa qaab seria ah lagu weydiinayaa ama qaab kaftan xataa markuu interviewga dhamaado xataa oo aad kala kacdaan xataa laba hadal oo kaftan lagu sii tuuraya marka interviewga ama maaragtay waraysiga shaqada wuxuu u baahan yahay marka inaad ka taxadarto sababtoo ah waxaa jaaniska u haysataa waxa waaye inaad maaragtay shaqadaasi hesho waxaa u baahan tahay si daacad inaad u hadasho secretka kuwaad aan ku siinayo waxa waaye si daacad inaad u hadasho qofka oo shaqada ku siinayo wuxuu u baahan yahay si kasto inuu kuu qodqodo wuxuu ku weydiinayaa oo aan arkay oo ani xataa igu dhacday in lagu dhaho waxyaabaha aad ku fiican tahay noo sheeg waxyaabaha aad ku xun tahayna noo sheeg way fududahay marka inaa isgado oo dhahdo okay aniga waxaasan ku fiicanahay kanaan ku fiicanahay waxaasan qabtaa socialan ahay kana ahay laakiin way adag tahay waxyaabaha adiga dhaliishaada ee inaad sheegto laakiin qofka ku wareysanayo waa muhiim ay u tahay inuu ogaado waxyaabaha dhaliishaada laakiin haddii aad isdifaacdo aad dhahdo wax dhaliil ee ma lihi qofka marka waxa aad sheegaysa ama interview hadalku la soo yeesho dhan micno ma ka soo qaadayo wuxuu ku leeyahay kan qofkan been uu sheegaya marka waayo anagoo dhan waa normaal qof walbo bini aadam ah dhaliil ama positive iyo negative ayuu leeyahay marka macnaha markaan ku leeyahay negativeskaada ma ahan waxyaabaha oo adiga ama gurigaaga kula nooshahay ama iskale magaalada kale aa kula nooshahay waa waxa markii goob shaqo la joogo oo negativekaaga ah sheegaysa oo kaliya qofku wuxuu ku arkayaa qof serious ku arkayaa oo daacad ah dadkana ay shaqada rabo inay ku siiyaan muhiimadooda waxa waaye inay ayaga ay ka arkaan daacadnimo mar haddii daacadnimo laga arko waa lagu aamini karaa mar haddii lagu aaminana shaqadaasi waad heshay marka waxa waaye in haddii marka su-aasha qodobka ugu muhiimsan oo aad dhahdo okay negatives ma balihiba yani ugu meesha buu kugu dhamaatay waxa kaloo laga wareysanayo dhanna maaragtay ka kac waayo waxaa laga yaabaa haddii aad meel qurba aad ku nooshahay inay luqadda kuugu adag tahay
ayna ku arkaan inay luqaddu kugu adag tahay. Laakiin haddaa u sheegto dhahdo aniga waxyaabaha negative-ka ah waxaa ka mid ah inaad luqadda igu adag tahay. Laakiinse aan jeclahay aan ku dadaalo habeen iyo maalin sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku barto. Isdeji oo keliya si daacad ah u hadal. Marka interviewga ama wareysiga haddii laga helo ama maaragtay wixii adiga aad soo martay oo ama aad soo qortay waraqadu wixii ku qoranna laga wareysto wax alaal wixii laakiin oo macluumaadka gudaha lagu wareysto wixii marka si dhab ah u sheegto marka waxa waaye waa hubaal marka waxa waaye in qofka shaqadii uu si degdeg ku heli karo marka. Laakiin haddii interview aad ka cabsato aad jejeesato oo maaragtay koodii hore aad isjarax oo maaragtay si fiican khatar iska dhig maanta waxa waa interview waa lagu yeelanayaa oo luqad si fiican u taqaanin website dalaq dhahdo website-na aa gasho kasoo noqosho ma lihid marka waxaa lagaa rabaa bis inaad isdejiso inaa maaragtay oo aad isjaraxdo isgadana waa la rabaa laakiin inaad iska badbadiso ma la rabo waxa adiga oo maaragtay balansigaaga inuu ku ekaado si kaftan inay ku weydiiyaan xataa laga yaabo maaragtay waxyaabo kale ma laga yaabaa inaad wadankaaga u noqotid oo kale oo si markii interviewga dhamaado oo kale macnaha ayaga marka waxa way qofka wuxuu xiiseenayaa bir wuxuu ka baqayaa inaa maanta oo shaqada ku siiyo ama uunan ogeyn waqtiga inaa iska laaban doontid adoo asagoo shaqada marka waxa way qofku waxa u xaqiijinaysaa aad leedahay aniga meel uma socdo wadankaan deganay marka waxa waaye inaa hadasho oo maaragtay si fiican u hadasho waxay ka caawinaysaa ayna maaragtay ku saamaxaysaa inaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo maaragtay shaqadaasi aad ku gasho marka waa